taageerayaasha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn ugu loolamaya baraha bulshada. Waxa uu muuqda iftiin aanay dadku u wada jeedin oo ah kursi la qaadanayo farmaajo kadib. 72 saac la soo dhaafay shaqada ugu weyn ee baraha bulshada dhanka Soomaalida iyo qoraaladii ugu badnaa la abuuray waxay u dhaxeeyeen taageerayaasha 4 musharax oo ka wada tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka. kooxahani waxay isku diidan yihiin kursi aan la hubin cidda qaadan doonta mucaarad iyo muxaafid. inta aan kursiga la gaarin aan dhahno doorasho aan la hubin. jamaahiirta xasan cali khayre, cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmed ayaa aad isugu naqdiyay baraha bulshada oo qaarkood ku fogaadeen madaxda. dadka fariimahan gudbinaya qaarkood waa howlwadeenno u shaqeeya musharaxiintaas, qaar siyaasad ahaan u taageersan iyo kuwa beel ahaan u taageersan. dooduhu waxay badi ku fooraraan xasan cali khayre. siyaasadda xamar taalla marba musharax ayaa miiska saaran oo la iibiyaa inuu haysto fursad wanaagsan. hadba siyaasiga markaas la iibiyo inuu sare u kac sameeyey waxa uu yeeshaa cadow dhow, waana isla musharaxiinta kale iyo taageerayaashooda. waayadan marka la eego hadalhaynta siyaasadda iyo sida doorashada ku socoto waxaa muqdisho aad looga hadalhayaa shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre. waxaa taas sii dheer inay waayadan labadoodu aad isugu soo dhowaadeen siyaasad ahaan. maadaama labadaasi nin uu hadda warkooda suuqa si weyn u yaallo, waxaa la sheegay inuu ku socdo dagaal isla musharaxiinta dhexdooda ah. 10 bilood ee la soo dhaafay marba musharax ayaa sameeyey sar u kac aan dhaafin afka. waxay dad badani ku wareersan yihiin sida sheekooyinkan loo abuuro maadaama aanay jirin wax weyn oo ay dhammaan xubnaha midowga musharaxiintu sameeyeen oo lagu kala hormarin karo intii ay isku safka ahaayeen. fahamka ugu dhow waa miisaanka uu leeyahay fadhi ku dirarka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo siday u fududahay in hadba aragti cusub la iibiyo. dagaalkan hadda ka socda baraha bulshada ciwaankiisu waa rajo la dirir. hadba waxaa lagu jiheeyaa qofkii la sheego inuu rajo leeyahay. 4 musharax inta aan la gaarin dagaalka cidda kursiga qaadan doonta waxaa dhinaca kala haysta walaac ku saabsan rajo xumada doorashada. qofka kursiga qaadan doona inta aan la gaarin waxaanba gacan ku jirin doorashadii. hadalkaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah falcelintii laga sameeyey dooda dhex taalla jamaahiirta midowga musharaxiinta. meeshii musharaxiinta iyo jamaahiirtooduba xoogga saari lahaayeen sidii lagu abuuri lahaa cadaadis dalbanaya in doorashada la dedejiyo, waxay u jihaysteen mudnaanta kursiga. intaas waxaa dheer musharaxiinta iyo qaar jamaahiirtooda ka mid ah waxay inta badan u dhigaan doodooda sida in farmaajo ka haray tartanka. mar walba xilli doorasheedka Soomaaliya madaxweynaha xafiiska jooga waa ninka ugu fursadda badan tartanka doorashada sida uu diiwaankii horena baray. inkastoo laga adkaaday dhammaan madaxdii xafiiska u tartantay iyagoo kursiga ku fadhiya oo uusan midna soo noqonin, haddana doorasho walba iyagaa hogaaminayay fursadaha iyo wareegga koowaad ee codaynta. dagaalka ka socda baraha bulshada ee u dhaxeeya jamaahiirta midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu dhinaca kale nafi siyaasadeed u yahay kooxda madaxweyne Farmaajo oo hadda intay mucaaradku isku maqan yihiin heli doona fursad ay isaga daaweeyaan dhaawacyada ku yaala ee ka dhashay habkii qaldanaa ee ay dalka u maamuleen 4 sano ee la soo dhaafay. mucaaradka waxaa hortaalla inay dib u hagaajiyaan awoodooda warbaahineed, inay iswaafajiyaan mowduuca jamaahiirtooda iyo marxaladaha toogashada u baahan, iyo inaysan Farmaajo siinin fursad uu ku helo macaamiil mucaarad ah oo soo gadooday. maxay kula taadiga